Waxaa laga sheekeeyaa in boqortooyo beri hore jiri jirtay ay ku badnaayeen niman faaliyayaal ah. Faaliyayaashan dadku khatiyaan ayay ka istaageen. Waxaa aad u badatay beentoodii oo in yar mooyaane badankoodu dadka been ayay ugu faalin jireen. Maalin maalmaha ka mid ah ayuu boqorkii boqortooyada xukumayay go'aan ku qaatay inuu xal ka keeno arrintan dadka dhibta ku noqotay. Waxa uu isugu yeeray dhammaan faaliyayaashii oo dhan, kadibna waxa uu mid walba ku amray in uu faaliyo oo uu sheego sanadka soo socda waxa dhici doona. Faaliye kasta waxaa loo qabtay muddo kooban si uu jawaabta u keeno. Faaliyaha run sheega waa la abaal marinayaa, kii been sheegana qoorta ayaa laga goynayaa. Faaliyayaashii sidii ay u dhammaayeen way baxsadeen, oo waxay iska ogaayeen in ay been sheegi doonaan kadibna la dili doono. Haddaba nin isagu faalka ku cusbaa oo wax badan aan ka garanayn ayaa keligii soo hadhay. Isaga oo naxsan oo calaacalaya ayuu hoos fadhiistay geed. Wax badanba muu fadhinee markiiba waxaa la hadlay mas meesha uu joogo ku sugnaa. Maskii ayaa ku yidhi, maxaad ka baqanaysaa ee aad la calaacalaysaa? Ninkii ayaa ugu jawaabay, waxaa lay amray in aan faaliyo sanadka soo socda waxa uu noqon doono. Haddaan run sheego waa lay abaal marinayaa, haddaan been sheegana waa lay dilayaa. Maskii ayaa ku yidhi, haddaan kuu sheego sanadka soo socda waxaa dhici doona, abaalmarinta wax maad iga siinaysaa? Ninkii faaliye ahaa ayaa ugu jawaabay, haa. Maskii ayaa u sheegay in sanadka soo socda uu noqon doono sanad abaareed. Ninkii faaliyaha ahaa isaga oo ordaya ayuu tegay boqortooyadii, waxaanuu sheegay in sanadka soo socda uu noqon doono sanad abaareed. Markii uu sanad ka soo wareegay ee la arkay in ninkii faaliyaha uu run sheegay, ayuu boqorkii abaal mariyey, wuxuuna siiyey dahab iyo raashin badan. Isaga oo gurigiisa ku soo socda oo abaalmarintiina sita, ayuu maskii ka soo horbaxay. Markaasuu ku yidhi, waynagii ku ballannay inaad abaalmarinta wax iga siiso. Faaliyihii ayaa xanaaqay oo waran ka ag jaray maskii, iskana eryey. Boqorkii ayaa haddana damcay in uu ogaado sanadka dambe waxa uu noqon doono. Waxa uu u yeedhay faaliyihii si uu u sheego, ileen waa kii sanadkii horeba isagu sheegee. Faaliyihii ayay talo ku ciirtay, wax uu sameeyo ma garanayo. Maskii hore u caawiyeyna wuu iska eryey. Isaga oo yaaban ayuu markiiba arkay maskii oo hortaagan. Maskii ayaa ku yidhi, haddaan markan ku caawiyo, abaalmarinta wax maad iga siini? Faaliyihii waxa uu u ballan qaaday in uu wax ka siiyo. Maskii waxa uu u sheegay in sanadka soo socda uu noqon doono sanad colaadeed oo boqortooyada lasoo weerari doono. Isla sidii sanadkii hore, run ayuu sheegay oo waxay noqotay sanad colaadeed, waana la abaal mariyey ninkii faaliyaha ahaa. Isaga oo abaalmarintii soo wata ayuu ka soo horbaxay maskii. Maskii ayaa weydiistay inuu wax ka siiyo abaalmarinta, laakiin ninkii faaliyaha ahaa uu ku gacan sayray, waanuu iska eryey sidii markii hore oo kale. Mar saddexaad ayuu haddana boqorkii damcay inuu ogaado sanadka soo socda waxa uu noqon doono. Faaliyihii ayaa loo yeedhay. Isla sidii sanadadii hore, haddii uu run sheego waa la abaal marinayaa, haddii uu been sheegana waa la dilayaa. Faaliyihii wax uu sameeyo ma garanayo. Maskii 2 jeer ayuu iska eryey, cid kale oo caawisaana ma jirto. Isaga oo ku fikirayay inuu boqortooyada ka baxsado sidii faaliyayaashii hore oo kale, ayaa waxa ka soo horbaxay maskii. Isaga oo aan waxba weydiin, ayuu maskii u sheegay in sanadka soo socda uu noqon doono sanad barwaaqo. Sidoo kale waxa uu u sheegay in aanu wax abaalmarin ah ka doonaynin ee uu keliya caawinayo un. Ninkii faaliyaha ahaa ayaa yaabay, waxaanuu weydiiyey maskii, miyaad iga aargoosanaysaa oo waxaad ii sheegaysaa been si la ii dilo? Maskii ayaa ugu jawaabay, haddii aan doonayo inaan kaa aargoosto, waaban ku qaniini lahaa. Ninkii faaliyaha ahaa ayaa u tegay boqorkii, waxaanuu u sheegay in sanadka soo socda uu noqon doono sanad barwaaqo. Sanad ka bacdi waxa rumoobay wixii uu boqorka u sheegay, waana la abaal mariyey. Ninkii faaliyaha ahaa oo ordaya ayaa u yimid maskii, kadibna waxa uu qayb ka siiyey wixii lagu abaal mariyey. Isla markiiba maskii waxa uu su'aalay sababta uu 2 sano hore ugu diiday in uu la qaybsado abaalmarinta, iminkase uu uga ogolaaday xitaa isaga oo aan weydiisan. Ninkii faaliyaha ahaa uu garan waayey sababta. Maskii ayaa u sheegay in aanay mushkiladu ahayn isaga, balse ay tahay samanka. Waayo sanadkii koowaad abaar ayay ahayd, in aad wax siiso maad karayn. Sanadkii labaadna colaad ayaa jirtay, way kugu adkayd inaad wax siiso. Sanadkan maanta ahse waa barwaaqo, cid waliba way faraxsan tahay.
sidaa darteed baad ila qaybsatay abaalmarintaada.